xogayaha fulinta dawladda hoose Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo qaybo warbaahinta kamid ah kula hadlayay xafiiskiisa ayaa fariin digniin ah u diray gaadiidleyda iskarogooyinka ee magaalada Burco ee ciidda ka soo gura meelaha ku dhow dooxa magaalada Burco waxaanu sameynay wixii aan gaadiid lahayn iyo waxa wasaaraddu cagafyo ay noo soo dirtay howlgal ballaaran ayaanu galay mooskii hore dhammaan waxaanu ku soo wareejinay moos weyn oo cusub dabcan marka waa laga raystay biyihii faraha badnaa ee magaalada soo galiyay waxa sadhacday oo halkan hore looga dignay imika u digayna meelo ay jabiyeen nimanka iskarogooyinka ee ciidda toga u doonanaya oo ay dhaawac gaarsiiyeen meelahaas waxay keentay in dib biyihii meelaha qaarkood uga soo jabaan isla markiiba laakiin alxamdulillah waanu gaadiidkeegaanu diro sidiisii baanu soo moosan mooskuna waxaanu isleenahay haddii alla ka dhiga kaamka weyn aanu taagnay oo 5 mitir 6 mitir gaariye dhererkiisa sare waxaan isleenahay 20 sano soo socda biyaha magaalada way ku kontaroolaya bi soo gali maaya laakiin waxaan si uga digaynaa dadka gaadiidleyda iskarogooyinka sita wata ee caadaystay inay wadada jaraan inay wadada gooyaan inay mooska waxyeello gaarsiiyaan oo uga digaynaa taayada waxaanu doonaynaa sidaan horeba sheegay magaaladu way sii fidaysaa iminka mooska laftiisa dhismaha qaar baa dhaafay marka isaga laftiisa inuu moos kala cusub oo mustaqbalka hadii la ka dhigo 5 kiiloomitir gaaraya oo magaalada xagga looga baxo oo sameynana hadii aan leeyahay xogayaha oo hadalkiisa si wataya sidoo kale ka hadlay xaaladda biriishada magaalada Burco oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka socotay dayactir wada biriishta dayactirkooda waa gabagabo waa dhamaad ku dhowyiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uga mahadnaqayna madaxweynaha markii aan codsi baaqa oo dheer u diray in labadii biriish ay dayactir degdeg u baahiyeen kadib markii roobabkii guga ilaahay mahad ka gaadhay inoo shugay waxa soo rogay daadad aad u laxaad leh kaana kullu xaabaan kullu daadanta la maro meesha la maarag baalin dhaawacii soo gaarsiiyay biriijada saddexda biriij ba dhaawacii soo gaarsiiyay haday tahay biriijkii weynaa ee deero iyo haday tahay kii China isku dhisay iyo haday tahay biriijkii aanu barigii dhawta xariga ka jaray biriish logoodka ee ceelgooni marka run ahaantii laba biriishada madaxweynuhu ka soo jawaabay lacagtii feeskii u horeeyay markii uu soo diray lacag $500,000 ayuu soo diray $500,000 labada biriish oo wada way gabagabaygu arrintoodu tahay biriishka yar ceelgooni aad ii sheegtay aad carabka kiisa ku dhajisay kiriiskaas sanadkii dhowdban xariga ka jaray ceelgooni la yiraahdo anaga dhisnay aafada biyaha dul maray gabigiisiiba ay horta qabxada kamida jabiyay dabadna waaba kii qadar ilaahay ba ka dhaco qof ba ka dhaco kuba dhintayba waanu xidhnay si aan qofta ma meeshii u marin horta biriishka waanu xidhnay dayactirkiisina waan kaga jawaabay marka horena anaga dhisnay imkana naga dayactiranayada waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco.